Saluu asigoo subaxdii jiifa oo iska nasanaya ayaa wax soo wacday saaxiibadiisa Santii. Waa uu ka qabtay markay isoo xog wareysteen oo xaaladaha ay iska wareysteen ayaa waxa ay si lama filaan ah ugu sheegtay in ay tahay berito subax safar. Uu ka murgay waxaanu ugu hambaliyay safarkeeda. Markii subaxii la gaaray ayuu sagootin u sameeyay Saluu saaxiibadiisa Santii iyadana waa ay tagtay iyadoo murugaysan, asina waxa la tagay asiga oo murugaysan. Santii haddaba waa ay duushay. Markii ay tagtay meeshii ay rabtay Santii ayaa iyada oo wadada socota oo niyadda ku haysa saaxiibkeeda Saluu ayaa si lama filaan ah waxaa kool ku soo galay saaxiibkeeda Saluu. Markii ay aragtay isla markiiba waa ay ka qabatay oo taleefankii waa ay ka jawaabtay, waa ay la hadashay. Iyada oo la hadlaysa ay ilowday, waxay iska ilowday inay ku socoto wadada. Si lama filaan ah waxaa jug ku sii gaari waa uuna jiray. Gabadhii waa ay dhimatay. Darawalkii waa uu isku naxay. Gabadhii ayuu isku dayay in uu caawiyo oo isbitaal u kaxeeyo, balse gabadhii waa ay dhimatay. Saluu asigoo taleefanka ugu jira ayaa qadka uga baxday, waa iska murugay. Waxaana soo gaaray arrintii in ay dhimatay gabadhaas. Asigoo iska murugaysan, isku oynaya ayaa si lama filaan ah waxaa ku soo wacday Santii. Waa uu qoslay, waa uu farxay, wuu ka qabtay, wuu la hadlay. Xaaladda ka waran sidee tahay? Iswareysi kadib si u sheekaysanayeen ayaa waxay ku tiri waa aan kula joogaa. Markaas ayuu weydiiyay sidee igu la joogtaa aniga. Markaas ayay waxay tiri asigoo iska fadhiya ayay waxay dhahday waxaan joogaa gadaashaada. Markaas ayuu ku yiri ha ugu ciyaarin ee xaggee joogtaa. Waxay tiri waxaan joogaa gadaashaada, soo eeg. Markii uu fiiriyay gadaal ayaa wuxuu arkay heer aakhiraad si lama filaan ah. Marka ayuu isku naxay, waa uu naqayliyay oo isku naxay. Iyadana taleefanka dhigta ayuu saaranta waa ikana ayay leedahay. Waa isku naxay, waa uuna ka cararay meeshii. Markii uu gurigii tagay xaafadiisa ayaa wuxuu la kulmay saaxiibkiisii. Waxa uu u sheegay arrintii qabsatay maanta iyo arrintii ku dhacday. Waa uu sheekay asigoo ilmeynaya ooynaya ayaa wuxuu dhahay saaxiibadeedii oo horay u dhimatay ayaa waxay isku bedeshay ruuxaan ama wax loo yaqaan heer aakhiraad. Ma garanayo haddana waxa aan sameeyo. Asigoo ooynaya